أو بقر متيد naag saddex nin soo martay inaad guursatid oo internetka noogu keentid boqornimo maaha naag kale ku rabtaad weyday sorry inaan dhaho arrintan laakiin naag kale oo ku rabtaad weyday hatta at least maxay ga dhibi lahayd naag 20 jir inuu intuu keeno heestan daarto think about it anigu ninka aqoon gooni uma lihi laakiin internetkan ku arkay update-ka waa la ii keenay okay naag saddex nin dadka qaar afar nin bay leeyihiin naag saddex nin soo martay inaad internetka noogu keento oo aad dareento inaad guul camal gaadhay adoo noo sheegaya in xarfaan kale oo cabdikhasaare ahaa oo daalana cabdikhasaare kala jiray isagana cabdikhasaare kala jiray oo ay ku soo kala kacsatay internetka aaway cabdikhasaare ii sheegay magaciisa isagana naagtii daalnayd ee shalay internetka xarfaankan kale cabdikhasaaraha la joogtay baad haddana inta noogu keenaysaan heestan oo daaraysa xuma maalinkaad ugu aragtaan naag 20 jira oo aan heestan daarto ima gaadhaan waayo ragga garoobyada guursaday oo dhan ima gaadhaan moogta markaas ma xuma laakiin fiiri okay waan fahanay naag daalan baad guursatay iska aamusteed shib iska dhawo waxaaga rabbi salli intaasoo nin baa jiro naaga daalan guryaha u gala dhib ma jiro kasii soco laakiin guulaysatay iyo daanyarada waxaa si aaminsan moogta ninkaasoo kale daanyar waay wuxuu aaminsan yahay naagta inuu nin kale kaga soo guulaystay war naagta saddex nin bay soo martay are you serious my brother badbaaday rabtay waad badbaadisay naagta laakiin wadadii ay ninka kale ugu soo gambisay bay adna kuugu gambinaysaa meel ku qorta kuu sheegaya ninkaas daanyarnimada uu ku jiro ee social media-iisoo dhan naagtuu ka dhigayba war waxaad samayn jirtay aawaya horaad samayn jirtay hees baa la iska soo duubayaa ima gaadhaan ima taaban kartaan looma ooyaanka war cid ku rabta inay ku gaadha ma jirto naag saddex nin soo marta cid adig ku rabta ma jirto abtiyo ukaadi awow ukaadi adaa daalan like waa la soo duubayaa awow jimka lagaaga baahan yahay waa diiday daanyarnimada ka bax waa diiday waliba waxaa fiiri haddaad aragtid nin aaminsan mentality-ga waa layga xun yahay yo dad baa iga xun yo cadow baan dagaal kula jiraa uu daalan yahay insecure waay ima gaadhaan looma ooyaanka heesta ii sheeganiyo magaceeda ambalegreye waa boota caadiya waaye waddadii naagtaasi ay ninka kale uga soo tagtay adna way kaaga tegaysaa soy xoogaa markay attention kugu hesho kugu kala kacsato internetka gaarigaas waa ku daaye cabdikhasaarayaasha internet ku jira ragga Soomaalida internetka laga yaqaano kulligood waxba ma qabsan karaan ilaa ay naag soo geliyaan meesha here's the thing Firi ninkii naag daalan baa la wataa bodbooda ma gaadhaan awow ma rabno inaan ku gaadhno waayo annaga naag saddex nin soo martay ma rabno naagta meeqannaa soo guursaday ii soo qoro commenti ku soo qoro update-ka waad ogtihiin waad la socotaan qashinkan baad maalin kasta internet ka daawata waan ogahay nin aaminsan ma jiro in la daawan karayo oo audience iyo dad dhegaysta u yeelan karayo ilaa uu naag meesha keeno kalsoonida heerkaasay maraysaa content ma jiro you got no content ma haysid cid wax kaa dhagaysanaysa ma jirto marka waa inaad naag noo keento soo daashay kadibna aad heestan balay garaysid awow boqor ma tihid hatta at least maxay ga dhibi lahayd naag 20 jir inuu intuu keeno heestan daarto ma xuma maalinkaad ugu aragtaan naag 20 jira oo aan heestan daarto ima gaadhaan waayo ragga garoobyada guursaday oo dhan ima gaadhaan moogta markaas ma xuma laakiin fiiri okay waan fahanay naag daalan baad guursatay iska aamusteed shib iska dhawo waxaaga rabbi salli intaasoo nin baa jiro naaga daalan guryaha u gala dhib ma jiro kasii soco laakiin naagtii daalnayd ee shalay internetka xarfaankan kale cabdikhasaaraha la joogtay baad haddana inta noogu keenaysaan heestan oo daaraysa
caalamkayga